السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قيارتا سو دواada waa mar kale barnaamij kale iyo Kista TV maalinku waa Arbaco waa 31 December 2025 barnaamijkeenan maanta insha Allah taala waxaan ku qaada dhigi doonaa laba qodob oo ku saabsan arrimaha Soomaalida iyo dagaalkii ay ku hayeen maamulka Donald Trump. labadan qodob ayaa waxay kala yihiin dowladda federaalka ah ee dalka Mareykanka oo joojisay gabi ahaanba lacagihii ay u diri jirtay gobolka Minnesota oo loo isticmaali jiray in lagu bixiyo rugaha caruurta lagu xanaaneeyo ee daycare centers. qodobka labaadna waxa weeye dad Soomaaliya oo ka soo jeeda dalka Soomaaliya haddase dad American citizens oo iyagu baaritaan lagu sameeyay sidii ay ku qaateen dhalashada dalka Mareykanka. haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel, haddaa hore noola joogtay like and share the video, waa idinka mahadcelinaya. sidoo kale facebookgeena follow the dhac ku sii insha Allah. aan ku bilaabay waxaa shalay soo ifbaxay wasaaradda caafimaadka ee dalkan Mareykanka, Department of Health and Human Services baa la yiraahdaa, ayaa waxa ay joojisay gabi ahaanba lacagtii ay u diri jirtay gobolka Minnesota, lacagtaas oo loo qoondeeyay loona isticmaali jiray xanaanada caruurta ee daycare centerada. lacagtan ayaa waxaa lagu sheegay in la joojiyay kadib markii wiil yar oo YouTuber oo lagu magacaabo Nick Shirley uu soo duubay videogaasna uu ka soo duubay meel Soomaalidu ay leedahay oo lagu xanaaneeyo caruurta oo cidla isaga oo claim gareeyay ama sheegay in xilligaas ay ahayd xilligii caruurta la rabay in ay joogaan meesha daycare centerka marka title ayuu wuxuu uga dhigay daycare aan caruur lahayn. kadibna videogii ayaa cirka galay, waxaana videogiisa uu gaaray 127 milyan oo view. videogan markay arkeen dowladdii federaalka ahayd ee dalka Mareykanka ayaa markii horeba waxa ay ugu kutubaysay ulo booc leh dadka Soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Minnesota ayaa waxa ay bilaabeen in ay investigation sameeyaan lacagihii ku bixi jiray gobolka Minnesota oo caruurta lagu bixin jiray haynta caruurtana meeshaas lagu joojiyo. Jim O'Neill oo isagu ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, Secretary of Health and Human Services, ayaa waxa uu sheegay in arrinkan ay tahay arrin culus. lacagaha dowladda federaalka ay siiso gobolka Minnesota oo loogu talagalay in caruurta lagu xanaaneeyana ama iskuulada caruurta lagu xanaaneeyo loogu talagalay si qalad oo aan sax ahayn ay dadka Soomaalida u isticmaalayaan. marka wuxuu sheegay in tuubadii dhaqaalaha ay ku socotay gobolka Minnesota ay xireen lacagtan oo gaaraysa 185 milyan oo dollar oo dowladda federaalka ka iman jirtay ayaa waxa la joojiyay in gabi ahaanba la siiyo gobolka Minnesota. ayaa waxa u hadlay gobernatoraha gudoomiyaha gobolka Tim Walz ayaa isagu wuxuu cambaareeyay arrinkan isaga waxana uu ku sheegay in ay tahay arrin siyaasadaysan oo la rabo in dadka Soomaalida si gooniya loogu target gareeyo. waxa ay sheegeen nimankan in ay rabaan haddii oo diyaar ay u yihiin daycare center kasto in uu la yimaado inta lacagta aan la soo fasixin attendance-ga caruurta imaashahoodii ay yimaadeen in uu keeno audit lagu sameeyo lacagaha meelaha ay ku baxaan inta qof oo u shaqeysa adiga si baaritaan qoto dheer in lagu sameeyo si loo ogaado bay yiraahdeen lacagahan dowladda federaalka laga soo qaado meelaha ay ku kala baxayaan. Tim Walz isagu wuxuu sheegay arrin siyaasadaysan inuu yahay, la rabana in stateka ama gobolka magaca looga xumeeyo positionka hadda uu haysto gobernatorahana ay la wareegaan xisbiga jamhuuriga oo isaga meesha in ay ka ceeriyaan ujeedka in uu yahay ayuu sheegay. sharciga ayaa waxaa sidaas si lamid uu ku soo celceliyay in uusan u ogolaanaynin in si siyaasadaysan oo politically motivated oo u isticmaali karaan Trump iyo xertiisa. arrinkaas ayuu sidaas u sheegay, laakiin lacagtii ku socotay daycare centerada halkaas ayaa lagu joojiyay. baaritaanna waa lagu bilaabayaa meel kasta oo rug oo caruurta lagu xanaaneeyo. haddaan u gudbo qodobka labaad, waxaan eegi doonaa insha Allah taala dad Soomaali oo ay dowladda federaalka ee dalkan Mareykanka gaar ahaan waaxdeeda qaabilsan Homeland Security-ga ay baaritaan ku bilaabeen dad Soomaaliya oo haysta dhalashada dalka Mareykanka.
dadkan ayaa waxa ay sheegeen Tricia McLaughlin gabadha la yiraahdo ayaa waxa ay sheegtay in ay baaritaan ku hayaan dad oo ay uga shakisan yihiin inay ku qaateen dhalashada dalka Mareykanka si qaldan. Marka mar la weydiiyey oo la yiri maxaad ku cadaynaysaa sideed se maaragtay arrinkan baaritaanka ugu sameynaysaan yaad se target gareynaysaan, waxa ay sheegtay in qofka markii uu dalkan imaanayay oo immigrationka uu ku imaanayay si qaldan uu ku qaatay oo been uu sheegay waa qodob. midda labaadna waxa ay tiri dadka markii interviewga laga qaaday oo dhalashada la siinayo la dhaarinayay inay iyadana wax qalad ah ama beena ay ku dhaarteen. gaar ahaan waxay tiri dadka guurka lagu keenay oo ay kulli waxa baryahan dambe ay aad iyo aad Fox News oo televisionkaas uu aad iyo aad u bombooninayay in ay u dan leeyihiin dad walaalo ah oo iskeenay bay u dan leeyihiin. mar la weydiiyey dadka sida qaladka ah ku qaatay oo ay ka shakisan yihiin ayaa waxa ay tiri qofka markii uu dalkan soo galayay in uu si sharci darro ah ama si qalada oo been ah uu u sheegay immigration officerska oo si been ah sharciga ku qaatay waa qodob keeni kara in lagala noqdo dhalashada dalka Mareykanka. tan labaadna waxa ay tiri dadka guurka isku keenay oo baryahan dambe ay ku soo celcelinayeen in ay jiraan dad walaalo ah oo guur isku keenay, dadkaasna waan u dan leenahay bay yiraahdeen oo si gaar ah ayaan u fiirinaynaa. waxa telefishinka caalamiga ah ee xagga jamhuuriga jira ee gacanta midig ee Fox News in badan alaaba ku soo celceliyaa in Ilhaan Cumar ee walaalkeed keentay. marka arrinkaas wax cadeyna oo ay u hayaan ma jirto. haddii cadeyn u hayaan waa hore ay dacwad ku soo oogi lahaayeen, laakiin arrinkaasna waxa aad u bombooniya oo ku soo celceliya gabadhan Tricia McLaughlin iyo waxa ku soo celcelisa Kristi Noem oo iyadu haysata Homeland Security-ga. marka arrinkan waxa ay bilaabeen bay yiraahdeen dad Soomaali ah in baaritaan lagu bilaabo dadkaas oo ay uga shakisan yihiin inay si sharci darro ah ay sharciga ku qaateen, in ay been sheegeen ama ay wax isdabamariyeen markii ay qaadanayeen. so far hadeer dad ay soo qabteen ama hadda wax newska soo galay oo ay ku qabteen fraud ama si qalada inay wax ku qaateen ma jiro. laakiin FBI-da ninka directorka ka ah Kash Patel ayaa waxa uu sheegay in ciidamadii FBI-da oo Federal Bureau of Investigation-ka hay'adaas oo dhan wixii haysay resources dhaqaale iyo ciidanba ay isugu geysay gobolka Minnesota oo ay ujeedkooduna uu yahay in baaritaano culculus la sameeyo oo lagu baarayo dadka Soomaalida ah. marka dagaalkii wuu sii ballaartay. waxa kale oo uu affect gareeyay ama uu saameyn ku yeeshay dad state kala degan. shalay waxaan arkayay dadka degan state-ka Seattle oo ama Seattle Washington dadka degan gobolka Washington ee Seattle dadka degan oo iyagana ka cabanayo in hanjabaado loo soo diray oo dhaykeerada leh oo Soomaalida ah. marka gobollo kale hataa wuu gaaray, laakiin dagaalka hadeer waxa uu ku wajahan yahay gobolka Minnesota. labadaas arrin ayaana ka dhacay gobolka Minnesota. waan arki doonaa insha Allah taala wixii kale oo ka soo kordha. haddii aad nagu cusub tahay subscribe, haddaa hore noola joogtay like and share the video. inaan ka mahad celinaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.